wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaan u dhaxeeya degmooyinka Buula Bardiya Maxaas ee gobolkaas ayaa sheegay inuu halkaasi xalay ilaa shalay gelinkii dambe uu ka qarxay dagaal aad u xoogan sababayna dhimasho iyo dhaawac fara badan. dagaalkan ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. isku horimaadkana waxa uu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo ka ambabaxay Maxaas kuna sii jeeday Buula Bardi oo hogaaminayay taliyaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Faarax Waasuga kuna magac dheer Faarax Kooshin ay shabaab jidka u galeen. labada dhinac ayaa intuu dagaal ku socday waxay isku adeegsanayeen hub culus ka oo dareenkiisa laga maqlayay tuulooyinka ku xeeran deegaankan keenta ah ee ku yaala inta u dhaxaysa Maxaas iyo Buula Bardi. inta loo yahay waxa dagaalka lagu dilay 20 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab kana mid yihiin amiir caan ah iyo dhowr askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa inoo xaqiijiyeen dagaalkaasi cuslaa ee dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ay ciidanka dawladda ku gacan sareeyeen Al-Shabaab la jab loo geystay. Al-Shabaab ayaa dhowr mar isku dayay inay jidka u galaan ciidanka xoogga ee ku safraya wadada xiriirisa degmooyinka Buula Bardi iyo Maxaas oo ah mid keen ah. degmooyinka Buula Bardi iyo Jalalaqsi ayaa Al-Shabaab waxa ay go'doomiyeen muddo sanado ka hor ah waxaana ilaa haatan ay tahay mid isan gali karin gaadiidka shacabka ah. waxaana labadaasi magaalo ka tirsan gobolka Hiiraan Maxaasna daris la ah cunooyinka diyaarado lagu geeyaa magaalooyinkaasi. Al-Shabaab ayaa bataatan diidan in gudaha loo galo degmada Buula Bardi iyo Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan.